munaasabad kooban oo lagu wareejinayay gaarigan ay hay'adda UNDP ugu deeqday wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland oo ka qabsantay xarunta wasaaraddaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda deegaanka gasimaha guud ee wasaaraddaasi madaxa hay'adda UNDP ee Somaliland iyo saraakiil kale marwey shukri xaaji Ismaaciil Baandare wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland oo halkaasi ka hadashay ayaa ka mahad celisay gaarigan loogu deeqay wasaaradda deegaanka Somaliland kaas oo wax ka tari doona bay tiri mashruuca horumarinta reer miyiga ee iska kaashanayaan wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland iyo hay'adda UNDP. maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay runtii maanta deeqdan la siinayo hadii la yiraahdo UNDP noo qoontaysay iyadoo ay tahay mashruuca UNDP aan kala shaqeyno maanta saddexda gobol ka shaqeynaya hadii la yiraahdo fayskiisa labaad bilaabmi doono kaasoo wax ku oo la dhaliyay oo mirihiisii ilaa maanta la taaban karaayo ayaa waxaan ugu mahad celinaynaa sida ay isu xilqaameen UNDP inay noo keenaan baabuurkii loogu shaqeyn lahaa mashruucaas waxaan leeyahay UNDP ilaahay maaragtay khayr ha siiyo iyo inta kale nala shaqeeyaba ay ka mid tahay SDF too kale ilaahay khayr wada siiyo waxaan u sheegaynaa baahidu inaanay ahayn kulli mashruuca iska daba imanaya inay baahsan tahay oo maantana kulli abaar badan lagu jiro abaar baahsan lagu jiro oo waliba dhinaca galbeedka iyo dhinaca bariga shisha aad u saameysay waqooyigana aad u saameysay Hargeysa inteeda dhexe oo iyadana roobka ku yaraana saameysay meelaha imka ka jiro waxaan xooga saari doonaa hadii la yiraahdo bal sidii wixii wax looga qaban lahaa dhulka biidnillah iyo horumarinta reer miyiga Somaliland oo isnaalkaasi ka hadlay ayaa mahad celin kadib waxa uu si faahfaahsan uga warramay mashruuca horumarinta reer miyiga iyo gobolada ka shaqeeyo sharaf bay noo tahay in maanta baabuur aad u qiimo badan ee wasaaradda ku wareejisay hay'adda UNDP kaasoo wax ka tari doona mashruuca ka socday wasaaradda ee UNDP ee ku saabsan horumarinta reer miyiga ee ka socda saddex gobol mashruucaas oo ka socda saddex gobol gobolka Togdheer gobolka Saaxil iyo gobolka Murudujeex runtiina dhamaaday fayskiisa damana la sugayo si guulana ku dhamaaday laga rajeynayo midho badan iyo wax soo saar badan iyo wax qabad badan in dhulka wax badan ka bedeli doono iyo deegaanka iyo nolosha dadka ku xeeranba runtii aad baan ugu faraxsanahay waan uga mahadnaqaynaa Mr. Sargay madaxa hay'adda UNDP ee Somaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay mashaariicda hay'adda UNDP ay ka hirgelisay Somaliland isagoo sheegay inuu gaarigani qayb ka yahay mashruuca horumarinta reer miyiga oo ay wasaaradda deegaanka kala shaqeeyaan gaarigan hay'adda UNDP ay ku wareejisay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ayaa wax weyn ka tari doona hawlaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Somaliland ay ugu jirto sidii deegaanka loo ilaalin lahaa isla markaasna kor loogu qaadi lahaa horumarinta reer guuraaga وسمتر محمد محمود سمتر يا عبد العزيز عيدين علمي تلفزيون كقرنك حرونته وزارة الديجان كي يهرب من ترى الميجا Somaliland مقالة هرقيسة